ولي جعل درتي ما ويدي ها والله ويدي هالتيد وين المو يقدر كرتا المو يجوا ولا واحد وين فريسو لكن كل با وحي هذه كاركت زوما ما أبورتي لكن أقول هاي هذا هذه وين المو نقطع أقول يوم الخليج كسو كسو هذيك ولي قبل جعل مو صبر دقت ما كنت اليوم كنت عليه adoo jacalkaaga qarsanaya sidii aad isku weydeen ilaa barka maalintii aan ugu tala galay maalinka maxaa ku dhacay waa la guursaday nin iyo naag saaxiib ma noqon karaa hablahoo dhan baan jecelahay iminka marka waa abad buush markaa already dookhi uu kaa tegey qaar baa ku jira raascaanood kuwa ninka aniga jacaylkaas ay muuqda tayra raxmeela gurigiisata inuu qofku meel babliga xaajadiisa uga yidhaa waan ku jecelahay raggeena Soomaalidu inta badan kuma dhacaan ma fulaynin bay ka tahay markaas waxaan noqon lahaa nin ay boqorada guriga ka taysan tahay islaantiisa kuwa kugu dhuumanayee ma fulaynin bay ka tahay mise tiimkaada hogaaminaya guursada qofownaha u joojin guurka hooyadaya aabbahay baan abaalgudayaa aabbahayo hooyadaaba kuma abaalgudine hadduu doonay isagoo xamaala ayuu ku dhalay markaasuu halkaa kugu soo gaarsiiyey xamaal cabdi duco aad baan kuu soo dhaweynayaa maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan jaanis kuga helo inaan bal xogaa waraysi yaroo aan laakiin kaa oohinin aan rajayn inaad oohi doonto inaan kaa qaado siyaasad ma gelayno arrimaha siyaasad dadku aad uma jecla dadkuna aad bay ugu dabaqaan maadaama aan doonayo caawa inaad dadka siyaasadda ka yarana siiso arrimo jacayl umaynu dhex haabaynaa qolkaa jacaylka ka bixi mayno cabdi duco iyo jacayl marka la kala yidhaahdo dad baa wax badan ka aaminsan qaar waxay ka aaminsan in jacaylka aad necab tahay qaar waxay ka aaminsan inaad dad aad u taageerta jacaylka bal cabdow ummadda adiga iyo jacaylka maxaad ugu qeexi lahayd maxaad ka aaminsantay bismillaahi raxmaan raxiim sidaam waad mahadsan tahay waan ku faraxsanahay inuu caawa kulano jacaylkaaga sii bilaabay la ficiida galadaada ku weydiinaya su-aashaada sababtoo isticmaasheeta badan dadka wanaagsan qalbiga xabaxabkaale kowri markay la ficiida galada ka sii bilaabeen jacaylka waxaan ka aaminsanahay nolosha dareenka san ay ku jireen inuu yahay waxaan ka aaminsanahay inuu yahay badanka dhaxtaalka iyo xiriirka aadamaha iyo noolaha oo dhan ayaan jacaylka ka aaminsanahay jacaylka waxaa ka soo horjeeda nacaybka oo wax kasta oo xumi ka dhashaan waxaa xun baa la necbaadaa waxa loo necbiyey waa jacaylka daraadii mahadsantahay xusuuso badan baa doonaya caawa inaan kusoo yara xasuusiyo softiguna waa ku agyaalaay waad soo yara dhaweysan haddii ifan inuu yaro oohin ku qabato cabdow waad ii qeexday jacaylku wuxuu yahay adiga weligaa jacaylba ku dhacay waxba xataa qofka magaciisa nala wadaagin laakiin jacaylkii kugu dhacay saamayntiisii goortuu ahaa raadkii uu kugu reebay iyo markii dambe wuxuu kaaga tegey jacaylkuyga maba dhammaanba ilaa maalintaan dhashay haddaba waxaa jira mid aanad ilaabin ilaa imankooda xasuusato balkaana la wadaag markan jacayl soo hadal qaado waxaanu xasuusanaa wuxuu siidadka ka dhaxeeya labka iyo dhejinka laakiin jacaylkuyga maba dhammaanba jacaylku waa ka aad jeceshahay ciyaal xaafadnimadaada jacaylku waa kaad waalidkaad jeceshahay jacaylku waa kaad jeceshahay waxyaabo adiga dookaaga ah jacaylkuygamu dhammaan marka jacaylkaad weydiinaysa waa kee markaan dada jiray 15 markaan doona xaguula soo baxay dhabta hooyada iyo kan anu ku weydiinaya waxa weeyaan daawadayaashuna way iska garanayaan waalidka wana jecel waan ogahay asxaabtii dad badan baad jeceshahay waan ogahay kaasi waa jacayl iska koobano cid kasta taqaano weeyaan
Mm. qof dumara Mm. weli jacayl ma kuu galay aad igama dhammaankaasi anu horka kaan doonaya waa iminka kaa waxaan ba isugu kugu dhex qaadayba haye oo kugu dhex shaashoobay baa masire haye barahan bulshada iyo oohinahan socday iyo waxaan deerta anigu way helay wuu ku helay saan la hadli kari waaye wuu ku helay waad la hadli kari weyday saan markaan xabaasha tago markaan masaajidka galo mar kasta meel kasta waxaan arki jirin waxaas nafteeda ma xasuusan jirin iyadun baan xasuusan jirin adigaa jeclaaday ilaahay ha barakeeyo ha u barakeeyo ubadka odayga waa inantii ugu horeysay soma inantii kuugu horreysay ee aad jeclaato ee qalbigu kaa raaco ee marka uu qof jacayl kula soo hadal qaadaba aad iyada soo xasuusato iminkaan soo xasuustay ilaahay ha barakeeyo odayga ha u barakeeyo aamiin ubadka ha u barakeeyo sidaad markaa ku jeclaatay maxaad kala kulantay ma garan kartid waxaad ku jeclaan waxba qofka ma doonina inaad sheegto laakiin bilowgii sidii bilowga sidii uu jacaylkaaga ku bilaabmay sidee bal la yidhahdo cabdi duco jacayl heer caalamiya ku dhacay bal wax nooga sheeg inuu jacayl yahay waxaan imaan garanay haye laakiin waxaa igu dhacay dareen ka duwan kii dumarkana dhex mari jiray ama dadkaba asxaabta caadiga dumarka dee dumarka caadiga dee asxaabta atiin ha dee iskuulka hoosaan dhiganayay 5-6 beelahaasaan ahaa luuq baan iskaga soo horbixi jiray dabadeedna eegmada iyo ereygeedun baa iga soo gaabto saasaa weye qofka madasa qofka markaad garanaysaa idinkaas rubkaa sheegaysaan hablaha yarar ama inamada ciyaalkood garanaysaa laakiin iyada indhuun baa soo waaban jiray waxun baa igu dhici jiray markaad aragto markaan arko waabasha oo waan dhaafi jiray buluud aanan garanaynin oo haddana layr qabowdee oo aad iswaayeysoba haye markaa kadib baan filan layidhaha gujigujoo dahay haye ayaa qarxiyey waxaan haya waqtigaa qaadkaan bartay kiibaa astaamahaagii u arkay anigoo habeen qaad la dhuumanaya oo fiyo yaro ku yaalay iskuulka gacniba agtiisa daawanaya ayaa waa nacba aflaanta maalaabaa la odhan jiray hindiga jacaylka gaal mastariyo daalama dariyo dhibista de dhamac waa la koran jiray dabiya daal iyo maalaha dabeedna nimankaasa keli sholo daalama jirayo sholo sanjiiyo de fankeenayna waa la baabiyo anagu xiligaanu kacnay fankeena waa la baabiyo teetarada la baabiyo hindi baa noo shidnaa filin gujigujoodaha la yidhaayo maalaaya unbaan saa u arkay kadhakada weyne makubaamediyo lolan jirto qaad yaro boodaro lolan jira magaalada yaali qaadka markaa si qaldan sidii abtiga ilahay u harta guriga kaaligu guri jira ma barane anoo dhuumashaa ku bartay mooji dabadeedna dhuumashada aan ku bartay qaadka waa edhimeydana dhacanka xuseen ayadane ayaa waxaa dhacday qaadka anigoo dhuumanayo meel yar hooso kursiga hore hortiisa bahal isfiyo yar ku yaala iskuulka calmiga agtiisa oo nuulada loolan jiray daawanaya unbaa guji joodaa saylool unbu igu noqdoon inantii unbu igu noqdoon kaajar iyo shaarubkaan iyo faani dabeedna waa ciyaal iskuulkaa dabadeedna inan kale oo hablo kale ilaahay ha barakeeyo ubadka ha u barakeeyo marka waa iska cadiyo de waana xasuus ma u sheegatay mise sidii baad u baqayso markaa aragtaba kolba dhiisi baa isku arkayso mise weli maad sheegan marka waran habeenkaa doonisaad u sheegato waxaa dhacday habeenkaan u sheeganayay baa lagu jacaylka imka kugu dhacay maad sheeganba ma sheegan ma sababta keentay marka sinaad ugu ducaynayso yani waxay ku bartay wanaag waxay bartay angalka saxsan ee dumarka laga eego iyo dareenkaasay bartay ku dareentay iyadu marna in yarna ma sheegi karo laakiin haddana markaad qiyaasto markaad eegto iyadu maku soo eegi jirtay ina naxariis lama kuu eegi jirtay hadalka makaa guri jirtay waxaan ku garanayaa inaan jecelahay dee waxaad qofka qiyaasi kartaa markaad indhahaasaa ugu eegi karto moti sax sidii ma garanaysaa dacare dumarka riwaayadii dacar u daawatay si fiican dacar baan dexayo waan hadli kari waaye dacar sama garaysa riwaayadda si fiican si fiican saasaa iska ahayo waan dacweyn dacaraysay dacar baan ogo hadli kari waaye marka sidii baad adoo jacaylkaagii qarsanayaad sidii aad isku weydeen ilaahay barkee maalintii aan ugu talagalay maalinkaa maxaa kugu dhacay waa la guursaday
markaad ugu tala gashay in aad u sheegto lagaa guursaday caawo kale ugu sheego ayaa caawo kale markeeda la sheegay waad soo raagtay markaa maya wixii alla qoray waa ku bislaaday dee waad raagtay kaasi kii dhabtahay kugu dhacay buu ahaa kuwii dambe ee ku soo mara ma jiraan mid kaa u dhigma oo mararka qaar kaa ku qiyaasto intaas ilaahay barkeeyo kii ugu dambeeyey baa ku sheegaa haye kii ugu dambeeyey balaastigii waay haye dhowr sano ka hor haye ninka waxuma jeclaado madaa facebook iga dhaxan baday hablahoo dhan baan jecelahay iminka marka waa cubad mooji markaa already dookhi uu kaa tegey qaar baa ku jira raascaanood kuwa ninka aniga jacaylkaas ay muuqda tayra raxmeela gurigiisata kowli anigu ma arko haweenka ma arko in dowladaan bayn hase jacaylkayga xuduuduhu ka talaabaa markaa ninku waana qasab laakiin tii ugu dambeysa kaaga sheekeyna gabadhii ugu dambeysa waxay ahayd gabadha nolosheeda dhan ku riyan jiray gabadh mataantii ruuxdeeda ahayd mataantii ruuxoodii ahayd wad ku riyoon jirtay haye iyada waan u sheegtay mala adigoo maqaal ka qorana waan arkay ya adoo maqaal ka qorana waan arkay malaayo si sarbeeba arrimaha jacaylka waan ka qoraayo dee jacaylka qofku hadduu ka melan yahay siduu noolaan karaaba haye wanacay waa in biniaadanka laga qabto mawjib haye intaas ilaahay ha barakeeye iminka ma ogeyn la guursaday inaan la guursan waxay u dibisay inaan la guursan hataa iminka dee arrinkaygana waxaan u malaynaya anun baa nacasoobay haye wajiskii raggii soo taana umad sheegan ma u sheegtay taa wad u sheegan oo soo dhaweysay waxaan samayn waayey dee ma aha haweenkenu wax kastoo kugu qaata kuma adkaan karto isxayeysiin jiro sii jeclaysiinaya marka sii korto weyn sii korto halkii kaadu martaa adkaysi buu keenayaa inantaasina waxay ahayd inanaan anig boonsiniyow malaa mataantii ruuxdaada hayda markaad u sheegatay maxaa dhacay umama sheeganba tii labaad baad sheegan baan saragno annagoo isku xidhan baan marka yani waad isfahanteen taa waad isla jaan qaadeen iyaduna ku fahantay adna waad fahantay annagoo un baan arkay ma garanaysaa haye ilaahay ha dhowriyadane aamin been buliyad kuma arag iyadoo bay sheegaysaa taana waad kala fataxaysateen demanaka haddii la guursayda ilaahay u barakeeyo hay yani waad kala fataxaysateen oo iminka ma ogid meelay joogto inkuu ducaynaya khayr bay qabtaa jacayl badan baa ku soo maray wixii intaa ka dambeeya kolley wuxuu iska noqonayaa uun iska xiisu noqonaya waayo jacayl labadaabsaa inagaga filan kii dhabtahan bay haday kii dhabtaayna ku dhacan waa guurkun inta badan waxaa jira kelmadaad isticmaasho oo markaad meel kuman ka bixinayso ama cid la hadlayso waxaad tirahdaa I love beelaha ka mid oo somalilandiga adaa inoo sheegi doone I love ladagalaad tirahdaa ladagaluhu dadka kale jacaylka may ugu dhow yihin maya hurdheer haddaad gasho dookhaagadkaa eeginaysaa soma aniga jacaylkayga haddee reerkaa ku dhacay taa micnaheedu maaha iminka haddaan hurdheer galo oo aan baasta dalba bariiska inaan nacbay maaha makarona inaan nacbay maaha hilbiyeeda inaan nacbay maaha haddaan kaluun dalbado dee aniga dareenkayga iyo korniinkayga iyo waxaan arkay reerkaas bas baan ku noqday reerkuna gabadhna ma aha ninna ma aha ciisahaan intooda sano ayuu ilaahay ka badiyey intooda ima tuso ima marto reer marka laga hadlayo dee qofna weyday qofsana weyday jacaylka iyo reerkaasi ka horeysa isku yihin niya waxaan bas dee khasada hasii loo wada jeclaa wad garanaysa faysal alwaabe halkuu istaago sii loo wada jeclay wad garanaysa ilbiliska koowaad ba sheegay waxa dambeeya waxaa ma sheegay xaaji cabdiwaraabe ilaahay u naxariistay wad garanaysaa saambalkii dadnimada soomaalida ilbiliska maanta aan joogno maayilmoogaad garanaysaa si fiican oo isaguna jacayl socdaa dadkuna jecel yihiin waxna waa siyaaso laakiin qofka marka laga hadlayo yuhunta qof waa bini aadan wuu aroon karaa isaga weliba arrimaha jacaylka aad bay isugu fiican yihin isaga weliba arrimaha jacaylka xaggii fakar uu isaga weliba wuxuu ku dhiiraday inuu meel babliga oo xaajidiisa kaga yidhaahdo waan ku jecelay taasoo kale raggu inta badan kuma dhiiradaan ma fulaynima ma baqasha anigu qudheed wani kaga dayday midhuhu beeray baad ka mid tahay
anigu dhadoonig kaga dayday صح marka in qofku meel publiga صعب بانتي inuu qofku meel publiga xaajadiisa uga yeedhaa waan ku jecelahay raggeena Soomaalidu inta badan kuma dhacaan ma fulaynin bay ka tahay bal maxaad aad ku cabsi humaag cabsiyo dadka loo sameeyey qofku inuu caytama dhaqankeeni baa yaraada adagoo eeg qofku waxa laga dhigay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam yaad ugu jeceshahay khadija soo inta khadija joogtayna gabadh muu guursan waxani weliba isagu waa liidar mooge waa liidarship waa hoggaan kowlid inuu kelmaddaa yidhaahdaa waxay dhiiri gelinaysaa in dadkii halxaaslayaaasha lagu baratamo jacaylka oo nacaybka lagu baratamin isagaa wadaad kasta iyo ganacsada kasta ka saameyn badan mooye farka uu ku dhaqaaqo maanta waxaa qabadna uu muujiyey yaa barakee kowlid arrimaha jacaylka inaan ka bixinee jacaylku su-aalahaagii markii aan dib ku xasuusiyo arrimahaagii jacaylkii hore eegasyadii hore aan dib ku yara xasuusiyey softigaa kuwaag yaalaan islahaa uu soo yara qabsanayaayo uu yara ilmaynayaayo maxaa qalbigaa ku dhacay jacaylkiisii ugu horreysay markaa soo xasuus oohintu horta waa dareen weli jacayl dartii ma u weyday wallahi ugu weyday haye waxaan u weyey oday ilmayso ilma kaa timi adigoo cabdi ducaa waan u weyey goormehe waxba u malaynaya inay tahay miyaad daawanaysaa laga yaaba inay ku daawanayso waan u weyey markaase weliba inantii aan u ooyey nacasii qaadatay labadii hablood imkaan sheegayna ma tii hore amse tii dambe taad u weyday uma dhexe waa labada midna ahayn inay ku daawanaysaa laga yaabaa hayada laftigeeda ha suugo oo ku soo rido jidkeega haye jacayl aad u qabtaad ugu waan ku arkayna ilma ku soo hayso haddaad ifan ilmaya iska yara daranto softigaa ku agyaala iska isticmaali laakiin cabdi duco ilmeeyey waxay taa ka dhigan tahay inuu cabdi duco yahay qof qalbi jilicsan qof wanaagsan ooyni kara marka bal nagara xasuusiyin ooyintaadaas maan kuyara xasuusiyo haye waa waxyaabaha ku jeclay inuu qalbigiisu qoyan yahay ma ooya ayaa ooya ma laga yaaba inu kusoo yara haysay laakiin bal markaad inantaad u oyday ma jacayl dartii baad ugu oyday may kugu daadisay ma waqtigaa kugu adkaaday maxaa dhacay niyow waxaan uga qaadanayn ayay gu tiri mowti haye oo wansala haye marka waxay wajarka ahaa ayaan u qaadan waayey qofka dawanaysa siiyo muraayadayda baa hayd mowti haye waan ooyey oohintii baa haddana la sii yaabto haye doonada yaabkii adigu waana sii socday doona way dhammaato iyaduna maanta ma garan meelay ku dambaysay taa aad u oyday ma garanaysa meelay ku dambaysay taa aad u oyday iyada darteedna ma garanaysa meelay ku dambaysay kuwa kale waan garanayaa iyadu ma garanay kuwa kale dambe waa gabadh la qabo oo u badle ilaahay abarakeeyo ta kalena waxaan ku yidhi iminkaan koolgarayn karaa laakiin xaaladda ku sugan tahay ogeyn inuu guursadayn kale wuxun baan koolgarayn lahaano maanta guuri diyaara waad garanaysaa nambarkeedii dad la hadasha ka hor waa xadgudub baa laydhaa ma haddaa salaamtan ka hor de salaanta dhaqan baynu waxaad ka baqaysaa mar kale aad leedahay leenahay dhaqan baynu leenoo hablaha lama dhayarsado lagagama oohiyo babliga haddii oohido laftigeeda wax weyaan iminka waxaan wadnaa un sheeko cidina ma garanayso de malaayiinka hablood hargeysa jooga inaan wax idin dhex mareenna lagama sheekeeyo ragga iyo dumarka xagga qalbi jileecnimada iyo marka qof uu jacayl ku dhaco inta badan waxa leedahay raggu haddii uu jacayl xun ku dhaco dumarka way kaga saameyn badan yihiin taa ka war ragga hadduu jacayl ku dhaco yani dumarka saameynta uu ku yeelanayo dumarka iyo ragga dee doonitaanka hore jacaylba maahay rabitaanka hore ee ragga iyo dumarka labkuu ka yimaadaa doonitaanku sidaa daraaddeed qof bini aadano wado maraya ayaa doontay qofkan isma garanaysaan qofkan
isbarashadiisa hore taymka Facebook iyo aad fareen baa ka higto kuwan baa isku sii baranaysaanoo waad ka qarin kartaa qofkii kaniimka wuxuu yahay laakiin berigaygii hore inanta aan helo waxaan garanayaa anugu harwaan gabowsho waniga berigii hore weli waqti mina sheegin intaasoo su-aalado ku weydiinaya weli waqtigeedii ma sheegin waxa sheegaya ku qaranaya xataa adiga qudhaada wayna saynaysaa kula saari weli kuma haro waqtigaas goorma faciida baa tahay anu ficida baalay aad baa kaaga yaray laakiin anigu waxaan garanayaa inanta horey kuu sheegayo waxaa jiraysa s t c iyo santeerko nambarka gurigooda ay gu qaatay 6 bilood inaan soo ogaayo inin wadadaa maraysaa ayaad iskaga dakranaysaa markaa rabitaanka waana sax inay gabadhu sidaa u adkaato oo kii gaabsi rabaana uu gafuurka dhulka ku dhufto iska haro kii kalena bahrayo in sharaftooda la dhowraa iyo ood ilaaliso inantan haddaad heli weydaan waa cabdiw laakiin inta badan marka nin ragaa ay inani jeclaato raggu inta badan inantaa jeclaatay si fiican ulama dhaqmaan jacaylka hore iguma aqbalaan way salciyaan badankoodu rag fiicanna way jiraano si fiican ula dhaqmaa 10kii ninba hal nin baa laga yaabaa marka inani jeclaato in waajibkii jacaylku lahaa uu ka soo baxo intooda badani marka nin la jeclaado aad bay inantii u meermeeriyaan maxaa sababay waxaa sababay inanta tallaabada kaatunbaa dhulka geysa ama cirka geysa waxaad leedahay hadday u sheegato wuu isla xaysiinaya miya waxaa laga yaabaa inuu ka danaystoa haye waxaa laga yaabaa inuu qof caadiya noqdo oo dee si fiican soo dhaweeya inuu qof caadiya noqdo oo uu yaa walaal hawshaa ma geli karo ila joog iyadoo sii wado si fiican ugu bahrayo waxaa laga yaabaa dumarku waxay ka mid yihiin quruxda adduunyada iyagoo qof ah suyina linaasi xubu shahwaati min annisaa eeg liidasha ka dhigan liidasho maaha waa dheerad ilaahaysiiye dumarka dadkao dhan baa jecel iyagaas jecel waa qurux sidaas daraaddeed waa qaali ninka way jeclaan kartaa oo qalbi bay leedahay laakiin gabadha waxaan kuu talinayaa waana dad daacadoo markay ninka jeclaadaan daacadnimadaas waxay isku beddeshaa khatar iyo halis iyo aamin almubti marka la daandaamiyo hablaha ka qaylinaya baraha bulshada bal u fiirso mid kasta nin baa xumeeyey ilaahayna wuu uga digayaa ragga wuxuu leeyahy walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastu ma karaysaan inaad dumarka hooyada iyo gabadhaada xataa dumarka marka laga hadlayo u cadaalad samaysaan walow xarastum xataa haddaad dadaashaan falaa tamiiluuhaa kula almayl hawada leexinina oo ha ka eexanina fatadaluuhaa dabadeedna waxaad ka dhigteen kal mucallaqati naag deldelan waxaa hableheena ka qaylinayaan bara bulshada innagaa u sababa ninunbaa ka weysiiyey ilaahu iga saamaxa imsaad ka weysiisay garan maayo laakiin kolley dee waan dhibay hooyadayna ka bilowgo hooyaday marka dumar waxaa tahay qof inta badan baraha bulshada caanka ah caan baa tahay oo garanayaa nebi mooye ay dumar guusigooda ka nabadgaleen ma jiro dumarka sheega waa hooyada waad hadashay xurmad iyo wanaag iyo kalaam inaga mudan yihin ha idinma karayno oo ilaahay baa idinma kartaane shirkaaya cafiya weligii waana sideynina sida anigu gabadha waxaan ku doortaa iminka bayshan baan u ahay naagtaydu waa inay ilmo iga dhigi kartaa ilmo iyadu leedahay waa laga fadhiiso laakiin kolbaa waxay adig ka aragta sooma ma way abuurantay laakiin adigu waa inaad ilmo noqotaa guriga markaad ka soo gasho laga bixi kabaha wari ah halkaa lagaga bixi marka tiraado namaalanta inta badan waxay yidhaahdaan ninka doonaya in reerkiisa uu jiro guriga markuu soo galo waa inuu sidii carruurta u dhaqmo laakiin bannaanka markuu ku maqan yahay waa inuu nin ragaas ka dhigo laakiin soomaali badan weliba raggeenu way bedeleen taas qaar badani guriga markay galaan bay ninnimo iska baadhaanoo adeeg iyo waana sababta keentay in carruurtu ka yaacdo aabaa soo galaya islaamtii baa cararaysaa
waxaa laga yaabaa qolkiisa in mar dambe ay islaantu mar ugu yara gasho na casho ma ku keenaa taasi ma dhaqankii hore ka haysataa weli talo nin dhaqankaasi ma garanayo markiinu magaalada iyo miyiga eeg magaalada iyo miyiga umaynaan soo marin baxaadeg oo magaaladu maaha wax aynu baxnimo ku soo gaarnin magaalada qasab baa laynagu keenay haddana 19 2000 intii u dhaxaysay ilaa 2000 qaxoontigii dadkii ka soo galay ayaa ku dhalay aabbuhu wuxuu ku dhashay miyi haye imka anigoo kale abiyo abti waxaan ahay ninkii koowaad ee magaalo ku dhashay hargeysina 80% waa sidaa ninkii koowaad ee magaalo ku dhashay magaaladana waxaa jiraya markaa waalidkaa mar walba horta waalidkeed malay sida ugu fiican bay ku korayaan laakiin cultural waxa kala duwan halkay iyagu ku soo koreen iyo halkan adigu waad ku dhalatay waxaa laga yaabaa kubadda inaad ciyaarayso waxanaad u baxloobayso ilmaha yari kubadda dhuumashu ku barta ciyaaraabaa laga yaabaa fiidiyowga dhuumashu ku barta markii dambe qasab bay ku aqbaleen waalidku inay waxaa dhici kara imka waalidka ortay 80kii hooyada ortay 80ka dhammaadkiisii ee dhalmadaysay 2000 imika dee dumarka gabadha labaad si lagu guursaday 9 ee dhalmadaysay 2008kii afartan somaha labaad lagu guursaday 2008kii bay dhalmadaysay labaatan sano ama 2012kii gabadha ilmaheeda ugu dambeeya iyo ilmaheeda ugu horeeya totally kaasi bay u dhaqaysaa ilmaheeda waxay dhaqday iyadoo aan nolosha magaalada waxba ka garanayn tanna iyada laftigeeda soo martay evolution markaasay dhaqday mawjid niyo markaa waxyaabaha inaga qaldan waxaa ka mid ah wasaaradaheena howlahan qaabilsan ee kala duwan isma weydiiyaan cabdow hablo badan baan ku daawanayaa si hablahaas taad qancisaa ay dookaaga u noqoto aabba nooceeyaad jeceshaad noqoto anigu waxaan jeclahay abadkayga hooyadeed ma ku daawanaysaa nin adoona haye nin u beysana haye nin u bukaana haye ninay u taliso inay kuu taliso awooddaa inaan leysmoogi lakuma wataa ku riyoonayo haye aabba noocaasa jeclaan oo aan waxaan xasuusan karaa aabbayaasha hambalkaa ee ubadkooda la saaxiiba inta badan way ka fiicayin ubadada kale aabbaha ubadkiisa la saaxiibka waanu ka maskax badayay oo la saaxiib ahaa ubadkiisa oolidiisa oo dadkii hore waaweynaa guri reeraanu saaxiib ahayn ayaan garanayaa oo la yidhaahdo reerkaasi ilaahay ha u naxariisto u dhintay odagaasi shaqadoo dhan baa garanaysaa odagaasi ubadkiisuu la saaxiib ahaa weliba habluhu la saaxiib ahaa anigu waan yaro warwareysan jiray laakiin jaanis baan helin reer waalan baa jiri jiray laakiin markaan ku warwareysan jiro inankiisuna wuxuu ahaa dadyowgii anoo qalqaaliyadiisi jeesiyo waxaa la odhan jiray ismaaciil cabdi xasan maye reer ismaaciil baa laydhaa sheekmada warkacaan ismaaciil xasan maye alayaa waa reer tool jeclaa hooyadeed khadiijo ismaaciil cabdi baa la odhan jiray oo saanta qoyska ahayd reerka anigu aanu aqaano sambar reerkaasoo kale soo qaataa reerkaasi reer bulshaaweyn bay ahaayeen bulshada sibay isaga kaantarooli jireen badh anigu waxaan ka mid ahaa dadyooga nasiibka u helay in ay u ogolaadaan inay ubadkooda saaxiib la noqdaan gurigooda wax ka cuno sababta gurigooda ugu soo hori jiray wuxuu ahaa guri jacayl buu ahaa guri ilaahay una xusto odagaas buu dhintay marka anigu waxaan jeclahay odagaas oo kale abahay macrugu snti buu ku dhintay anuusa jira abtigeena ilaanu xastay nin aada u wanaagsan buu ahaayo isagu gurigiisa anaaba kusoo koray laakiin faamiligan ku sheegayayo waxaa faamili dhisan markaas waxaa noqon lahaa nin ay boqoradda guriga ka talisaa tahay islaantiisa iyada caddeeca taladeeda dhegeysta wuxuu yidhi kulluku mas-uul wa kulluku mas-uul can raaciyati meesha kala sarrayn iyo superior ma jiro gabadhuna gurigeeda iyadaa ka mas-uula mas-uulatu can raaciyatiha guriga ninkaa ka mido ubadkaa ka mido alaabtaa ka mido sadam gurigaagii imika waa tagtaa wadu
بس كانت كباها يجيب عادي كانت كده سبعيسي ناس أوبتها وليد هذا غيب كاهن قولي ما كان يمكن تكتب waxaan sidaa u egtay gabadhaada kaa soo jirtay saaka markaad shaqadii ka dhacday adigoo wada dhaso oo ku mado soo cararay imkaad sanada soo dhalaalaya soo gashay sidaam waa inta gabadhiisa xaaskiisa ilaahay u barakeeyey aad jeceshahay ka soo haray allah inoo barakeeyo markaynu halkaa hagaajino loolankan baraa bulshada nagaga furan iyo dadka guurka iyo horta furniin kuba waa hal hablahan la soo furay weli baan arag horta hablaha midaan ku eedaynaya weli nin ka cabanaya nin mid baa habeen loo jireerkii gabadhay kala tegeen iyo waxaa maaray hablaheeda waxaan ku leeyahay haa way jirtaa qaabkii bulshadeena baabaay hablahan hebel baa ay soo furay iyo kan iyo magacyada bixinaya furniinka iyo guurkuba waa hal waxaan aada uga salaamayaa halkan dumar ingiriiska jooga ma magacaabaye waad garanaysaa dumarkaasi oo daberay furniinka iyo guurkaba iyagoo raggii kala tegay bay raggii guryaha ku hayay si ubadka ay u badbaadiyaan mas-uuliyaddii ubadka ninku gabadh kale u guursay laakiin ubadkuli kornaya dadku waxay odhanayaan way la yaabiin waxay ku odhanayaan mataqaanaa ninka ma iska guursatid sidan inan baa ka mid ah inanta lama magacaabayo way shasboon tahay wayba hooyo magaceedaasaa laga yaaba inay kala qaataan dadku laakiin way iskaranaysaa ilaahay ha ku barakeeyo waxaad gudatay ammaanadii dhabta ahayd nin maalin dhawidaan arkay baa ka mid ah qofku waa inuu daberaa xaalad kastoo nolosha ka hor timaado ubadka u baahday qofku arrimaheena qoysku way dumeeno waxay noqdeen comedy maadaama oo tiyaatarradii naga xidhayiin waxaad moodaaba in qoysaska in tiyaatar laga dhigtay waa tahay cabdi qofku asxaab badan buu leeyahay cabdi duco ma dumar badan buu la saaxiib yahay oo asxaabtiisa ugu badani waa dumar mise asxaabtiisa ugu badan waa rag new waxaan baxnuun noo jiro gabba baa jira horta kelmadda asxaab ninku naagtiisa buu la saaxiib noqon karaa haye hablo badan waan israqaanaa shaqo way naga dhaxaysaa macrifo way naga dhaxaysaa jaal wuu jiraa girlfriend gaaladu waxay u taqaanaa waxaynu inagu u naqaano gaabsiga waa nin iyo naagaan isqabiinoo si kasta isugu furan ma nihin waxaynu saaxiibadaa waa gabadhaadu hablaha kale walaalaan nahay nin iyo naag saaxiib ma noqon karaan ninka iyo naagta de saaxiibku wax walba way wadaagaan laakiin dadka ugu badanee laba nin baa la saaxiiba dadka ugu badanee faallooyinka aad soo dhigto kaman garayaa waa dumar raggu aad bay ugu yar yihiin taamaan la odhan karin cabdi xaggaa dumarku ira janjeeraa si waad uga dabacsantay ragga nin horta mid baa jiro dhib baan ku qabaa arrintaasoo dee xabadayda way ku dhaxambatay xabadaada ku dhex xabatayba way ku dhaxambatay waxaan waa hadday xabadaada ku iman lahayd markay aragto commentiga fara badan ee dumarku bixinaya bay yaacaysaa miya iyaga maaha qaladku waa aniga haye hableen way shasbooyin haye arkaad markii labadii weydiisay ayuu mudaalalay inantuni ninkay jeclaatay yaani u sheegi toojari taan kula qabaa si aanu ninku hasusto astaamo waa inay gaadhsiisaa heeru isagu soo daba cararo haddii kale dhadhan ma samayso hadday ka timaado gabadha ofarku xagga gabadha waan sababta keentay inta badan in la saliciyo gabadhii kowle ma laga weysiiyo gabadhu acceptancegeeda dee haddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khadiiji guursatay nebi maxamed dee raggu lama mid ahaa walaa asxaabi baan la mid ahayn walaa wadaad baan la mid ahayn nebiga ilaahay baa doortay isma siiyey sharfay khadiiji waxay ka arkaysay wasladan fa alhamahaa fujuuraha wa taqwaha waa la qabay isaga waa laga saaray isaga taqwadun baa ku jirtay dadka kale walaa asxaabi walaa wadaad walaa aniga ma jiro qof ismani markaa gabadha waxaan leeyahay ha u sheeganin ishaarooyin kala tus ha aan kaasu daba dhaleelino never ever ha u sheeganin atrooyin aad iyaga siinayso si aanay god ugu dhalan laakiin raggu hadday jecel yihiin gabadhii way u sheegan karaan isagu laakiin awooddii u leeyahay isagu awooddii u leeyahay isaga laga doonayno inuu sheegto laakiin dee labadii qof waa bili aadan haddii gabadhii ku dhaca ka waran jacaylku
إن أركب واحد قبل أدوره inta kor ku dhaca قبل جاء إلى هو شيء أو ذكره هو وين قاعد لين برين يا قصب وحى ما هذا cabdow قصب وحى يمكن يسوي شيء كتقول adiga weli gabadhi jacayl ma ku soo bandhigatay ma ku tiri waan ku jeclay أنا ماي weli kuma weli gabadho ku jeclay غير كم يعني si waad qaranaysaa ماي haddii ka war ay dhacdo inay gabadhi ku tiraado cabdow aad baan kuu jeclay واحد لما كرتها ما تشتكي قبل يوصل سنة أنا قلت دوتي صوتي haye لكن ما لا كرتها أنتون عصيمة إذا دوتون يشيل اليوم أنت بدنا استيعاب لا قف كنا قف واي يسوي رسكتو لكن ما تشتو ما حسيتو laakiin خلاص ما من قال هيك inay qof sheegtaan jacayl تمية مش تتعامل معها واحد جودي aad waxaad aaminsan waxaad ku tahay سكرة إذا أنتو كم بايدلدلي ما أنا كانوا يتعلين haye أنا أقول بتاعك حاجة خيم aduu ka yimi يمكن واحد يقول والله كم كم هي بارك كل ما شعري وكل حمد cid kasta oo gabadhoo kaban ka bixisay faalaha soo dhigtay waad jeceshay أنا كسول armay taadii kale kaaga dhex bataa taasada gaarkaa u jeclay ويكون عم بسنتو ما taasada gaarkaa u jeclay يلي بالله يروح سيتي سيتي ده شيء ay siiga si ha سيتي ha هل كان سنة عشان سكور عشان يسوي شو haye وانا أول شيء ما أنت سليم يسوي ha كان صار من مليون بلين وش يسوي aha من مليون يسوي كذا وانا أري خطر أنت تقول اللي قلت جيو بلا بشيء أنت واسكشوا بقرستين هاي شو كبر كيو ذي تعال حاجة بقول لك شيء يعني ha وش هبيان هاي aamin وأري خطر أشياء mhm واحد شيء في السيرة كذا حيلا كيردك إنك يلعب تسكون مع الثاني ولا حرضانه سي والملوليا إيه حتى ما هالشغلة يو واحد ولا سكين كلام inay isfahmaan oo istiraabaan ولا سبت كلام ولا سكين كلام aha ما حتى وحبي ولا بركة لكن لكن إن أذكر الشغل في أيام كاجا وما تقول هذا الخصوص وحدية وحبي كسبين وحسيتك وحنوار لنا وتعالى بينكم مودة ورحمة مودة هي الرحمة حتى هو يلا كمان حسيت كمان هذا كان حتى سموي هو يلا كان حتى هو بين فلت وجه تنوى الضخ cabdow rag badan oo aan su-aal weydiiyo ku yidhahdo maxaad u guursan weydeen waxaad tusaale usoo qaataan yidhahdaan cabdi ducaa naga horeeyo kuwaa kugu dhuumanayee ma fuliini bay ka tahay mise tiimkaada hogaaminaya نوكوا وحلا إني بريء منكم وددك تردن أنجدي يقدر يستوى وياه وودراس إلهينا موري إلهي بقى التاريخ كمان بني واقف أنا وأنقسمي سدام وهتان رابع العقب نقول سوى هو بنتي إلهي وين haye مشاركي كواد أفريقيا 8 سنة 8 سنة $200 بوها خلدراساني مكان هاي تدبي أفريقيا 8 سنة قربان نقول قداسة كانوا يقولون مناظر يسوقلي ميسان كرتنا ودلنتيدو إمكان كده يربي نوسيته أيام قاسي والله لو حل أكثر إلى من هالبيت كريت haye هو يا باي هو يا باي هو ينك بيسيت نرش والله بلاوي marka waxaad leedahay ugu dayanne حكى شغلين قصدها. بيسنا شيء هدانا هيسن ha دقاق وقولسو ما أنت تقولسو واحد عيسى قول كيسلا كو أمرها إنكم يا أنا أقول العقم وايو يمنا دقنتو qofkii baad laakiin jir تكسير نوانا weli qofkaad heli laakiin ما هو نعسمه ما كان يقول دينا وحنا يا هاي ودقل دم waa mid baqaya يبوران قل دم كل عاي هذا تعشين كسر هذا كان يدوغا جاوي شذا جميل يا كيم هو عير لقاد تاي gabagabadii hablaha iyo namada ku daawanayaba xaaslayaasha ma sheegayo qolooyinka aan weli lamaanayaal yeelan ama aan isguursan eed adigu hogaaminaysid guddoomiyaha u tahay maxaad fariin u diraysaa
ilaahu khaatimada khayr ugu khatim gabadii waxaad dhigtay hoggaan xun arrinkii ugu khatarsanaa iga raalli ahaado horta adaa laakiin gudoomiyaha guddoomiyada sanadka inaad iska casiloona igu soo duceeya guddoomiyihii ugu guursanaa ugu xumaa ugu liitay ayuu maanta ninkaa ay loo ficiida galaha gudoomiyaha iskaabulada ay loo ficiida galadii waxaa iska caytaa laftigeeda ay loo ficiida oo digriyaa dadka uga digayso anigu ka joogaan leeyahay waxaan ku leeyahay ilan yaroo aada u fariida maalindhood kelmad aan ka qoray waxaa jira sheeko dhalanteedoo la yidhaha markay ardaydu ka soo baxaan habdiina imika way ku darsameen waalidkii baanu abaalgudayaa waalidka abaalgudkiisu wax dhammaado maaha abbaha hooyadaa buu qabaa waajib bay ku ahayd inay kusoo koriyaan adiguna ama taajir noqo ama faqiir noqo ama dameer subixii la kala waalidkaa ixtiraamkood mar walba kugu waajib inantaas waxay u tiri iskuma xirna guurkayga iyo abaalgudka hooyaday aabahay waxyaabaha qaladkaa waxaa ka midaan aaminsanaa hooyadii welina umaan abaalgudin abaalgudkeeduna igama dhammaanayo waanan dayacay run baan idiin sheegayahay noloshaydina waan dayacay dadka wax bartay ayaan gaar ula hadlaya maaha dadkaan aynu ka hadlaynaa dadka kale anu waxbaa dhisaa soo nin yaro sakariye la yidhahdo musa cabdallah oo imika guursaday oo degan wuxuu degeyey orob saare sakariyo ninka musa cabdallah maamlo weyaan waa fariid ninkaasi siduu wax u kala wado waad yaabaysaa beleedu guursaday waxaa ma haysto badda wuxuu ka dhigtay gaafuu ka dhigtay moogtay traininka reberbereyntu gaafuu ka dhigtay iminka waxaan dhisayo oo dhan waa ninka maamula wuu iga mas-uulsan yahay durursi baan iska soo raacnay maxamed siine waad garanaysaa maxamed siine helayada ciidagala dee inhaasaka o dhan reerkiisa isagoo hotu yimaadaa waa ka iminka ilmihiisa dee isaga leeg marka waxaan ku leeyahay waxaan la hadlayaa waa dadkan schooling systemka soo maray anigu waxay hogaanka waalid aad u abaalgudaysaa ma jiro waalidku abaalka weligii wuu kugu leeyahay hoggaasi qaldan ee aan soo qaaday waan idinka digayaa guurka gala guurka oo isxoreeya wallaahi baan doolar kuu dhimeyn lacagta waxaan ku $100 iminka aniga tiradeedu $100 bay ka bilaabantaa kowle ninka wastaadka ila shaqeeya waxa laga yaabaa $20 wuxuu ku masruufaa nin ila shaqaynayay baan garanayaa oo isagu kaasina isagu soo hayay adeeryaha 9 ciyaala ay $25 maalintii ku masruufaa ilaahay baa barakeeyey inta $25 waysa ubadda lacagtii kale laantimiya laantimiya loo bedelo 200 waxay u baahan yahay xaafadda iyo maalku laakiin anigu maxaan samaynayaa ما هنا وليلة وين عاي وليلة وين تكتة ولا بشار ومن بلقي يا حبيبي لا عاي لكن يرش عاي قبل كذا أيه وحنا ود بلا هالجيس خوفك قويسك توك خوف ما أنت كنت تكون باكو فلان كنت تكون وحنا مقالنا دل نقيلة هالجيسان مليون باكو هل كان مليون سديد بقول أما السجال بقول كنت تكون أوقف وكمل كنت تكون بمعنى تكون لي وخير وأنا صح لكن تجيبوا هالبيك قلدوا سبيان وكانوا قلت تسكي هالبيك قلدوا سبيان بان كم دحي أيه وسدا قفوا نحو توجين قول كوية باهي من ما بالجودية أباهي هو يلا وكوية بالجودية كواديكا أنتوا دوني سووا حمالة أيوة كل راي مركزوا هالكا كوسو قاسي حمالة كاريون مسوينيو يجعل كل ساعة maalinta haddaba aad guurka guursato bay kuu bilaabataa mas-uuliyaddu ma mudayac baad noqonaysaa waxaad noqonaysaa qof mudayaca mise waxaad noqonaysaa halkii baad ka sii wadasa kuwa adiga kugu dayanaya ka waran way qaldan yihin xaggaa guurka soo aad u qaldan yihin kula ninkaasaa noo gudoomiyaa dee kaasi waxa weeyaan waa kheyr mas-uul haye gacdada aniga hay ku dayanaysaa ma dahirayo waxaa qaldanay sameeyey أنا قاعد كمان توضع قلب ما أقول لكن قلت له وقلت ومدودي وقلت عن قلي مركا قلت كان كتشو قال لي ما تنتهي عبدي دعو عاونت وإذا كان دونيو سكت سؤالهم كوديو مربي يقدروا واتنا كايرو وهيو مركان كو حسوسي حلي أي وين كو رئيسي حتى لو حنتريني كودي وين broadcastiga waxba isagoo ooyaha gelin ka daayo laakiin markale waxay noo balana imika waliba kadis buu waraysigan
marka xigeentan background soo baaro jacayl wali maaha siyaasad taariikhda jacayltan soo baaro inaan xabad ku taabsiyo si aan bal umada u tuso cabdi duco ooyaya aad baad maadsantahay ay ka soo